agaasimaha guud ee maamulka iyo shaqaalaha gobolada iyo degmooyinka dawladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Ambassador Abdifataax Saciid Axmed ayaa maanta mar uu warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ka warbixiyay khariirad uu sheegay in si khaldan loo sawiray oo loo qeybiyay dawladda Djibouti iyo dadka ku dhaqan magaaladaasi waxa uu ambassadorku sheegay in aanay khariiradaasi waxba ka jirin balse ay khariirada Somaliland tahay tii 60kii waa kan Ambassador Abdifataax oo arintaasi ka hadlay waxa ma khaldan loo qeybiyay dalka Djibouti waliba rag mas'uuliyiin aan la kulanay runtii ma aad u khaldan oo waxba ka jira runtii sadarkaysaanba waxa ku qoran ka 2013 la sameeyay ka ugu horeysa khaladka ugu horeeya Somaliland xuduudaheedii ayaa dhowr meelood loo qeybiyay oo runtii waxba ka jira maamulka Somaliland iyo xuduudaha Somaliland ixtiraafsay waa ku 60kii kuwaas sax kuwaas dastuurkeena ku qoran kuwaas runtii xukuumaddan ku shaqeynaysa waliba gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo qaabilsan kala xadeynta dhulka iyo Somaliland oo dhan u qaabilsan 60kii kaasoo noqonaysa dastuurka ku cad maafka habeerato maaba waxa ka jirin fake ah oo runtii been abuura marka waxaan runtii ka raali galinaynaa xukuumadda Djibouti dalka walaalaanahay iyo mas'uuliyiinta kala kulanay oo runtii maafka si khalad runtii lagu gudbiyay cid bi runtii maafka ka dambaysan oo daba galayna hadii Ilaahay waxna ka qaban doona xukuumadda hadii Ilaahay isagoo wallahi imika warka ma hayno laakiin runtii baaritaan ayaa socda wasaaradaha runtii ku daba jirno cidii maafkan ka dambaysay been abuurka ah runtii doonaysan in iska kaayo horkeenta dawladda jaarkanahay walaalaanahay Djibouti taas baaritaankaas runtii waa noo socdaan dusha sare waxa lagu qoray Saaq districts halka iyaga waxa la halka huruudan waxa lagu qoray Bursi districts inaan cawiga jir tawo hoosena waxa la yiraahdaa inta dhulka soo hadhay Seylac waxa la siiyay Ethiopia waxaan waxba runtii ka jiray marka maamulka Somaliland 60kii xuduuduhu way cad yihiin oo wasaaradahan halkan ku haynaa waxa weeye maamul qoran oo taariikhisa qaar la qoray 750kii kii ugu dambeeyay 60kii buu ahaa kuwaasina ku dastuurkeena iyo shuruucda waddanka ay sheegayaan arrimaha gudaha Somaliland ayaa waxay intii badneyd hirgelisay mashruuca JPLG-ga ee maamul daadejinta dawladaha hoose taasi oo ah horumar wasaaraddaasi ku talaabsatay geesta kale waxa uu Ambassador Abdifataax ka hadlay labada agaasime ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo ay dadku ku maransan yihiin bal waxa ay kala yihiin iyo waxa ay kala qabtaan waa kan isagoo arintaasi ka hadlaya madaxweyne markaa bisha 14keedii August bishii 8 sanadkan dekreetada runtii anigu ugu magacaabay xeer madaxweyne sadarkaysaanba waka halka waxa ku qoran haddaan faahfaahiyo madaxweyne wuxuu go'aansaday in Ambassador Abdifataax Saciid Axmed Guulad laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee maamulka wasaaradda arrimaha gudaha gobolada iyo dawladaha hoose ee Jamhuuriyadda Somaliland agaasimaha guud ee kale la magacaabay waa agaasimaha guud ee amniga ugu dambeyntii waxa uu ka warbixiyay safar ay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ku tageen gobolada galbeedka Somaliland kaasi oo ku salaysnaa mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose ee JPLG-ga ka waraysan Boorame wada kaliya jirto 1 kilomitir maantana 14 wado ayaa Boorame jirta waa waxa runtii Ilaahay lagu mahad celiyo mashaariicda JPLG-ga iyo dawladda hoose ee Boorame ee deegaanka iska kaashadeen marka waxa mashaariic badan oo saasaan ka socota waxaan ku tala jirnaa sanadka maadaama 7 milyan budgetku yahay in lacagtu sida ahayd loo gariyo mashaariicda gobolada iyo degmooyinka runtii mashaariicda JPLG ku socdaan geesta kale waxa uu agaasimuhu tacsi u diray Axmed Abshir Dacar iyo Faysal Ciise waa Boqor Axmed Cabdi muqbaahiyaha caalamiga Somali News Hargeysa